kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinada dunida daawadayaashana qiimaha badan barakooyinka eebe korkiina ha ahaado fadlan haddii markii u horeysana soo boqotay subscribe iyo like noo taabo mahadsanid Mareykanka ayaa taageero ballaaran u fidiyay dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud diyaaradaha Mareykanka ee hubka amba qalabka xambaara ee xamuulka ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas ay tan aad u badan oo hub casriya ay waday ay geysay Mareykanka safarka xogeenka Mareykanka u fadhiya Muqdisho ayaa sheegay inay ka go'an tahay Mareykanka taageerista Muqdisho si wadida howlgallada ka dhanka ah ururka argagixisada sidoo hadalka u dhigay Mr. Biden ayaa madaxweynaha Soomaaliya mar uu kula kulmay Washington ayay ka wada hadleen sidii uu taageeri lahay dowladda Soomaaliya Mareykanka ayaa aqbalay codsiga ka yimid dhanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligaas uu kula kulmay magaalada Washington madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Soomaaliya ayaa kula jirta dagaal aad u baahan ururka Al-Shabaab iyadoo kuna ammaaniyay safarka xogeenka iyo dunida oo idilba 72 degmo aad u waaweyn oo magaalooyin ah oo kooxdaas laga faramaroojiyay dowladda Soomaaliya howlgallada ay waday muddada 8 bilood oo xafiiska joogo hogaamiyaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayay dunida iyo midowga Afrika ku ammaaneen howlgalka ka dhanka ah kooxdaas oo bilaawiyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa hase yeeshee madaxweynaha ayaa waxa caqabad ballaaran ka haysata amniga iyo sugidda magaalada Muqdisho iyo deegaanadii horay ururkaas looga buriyay dowladda ayaa ku ammaantay taageerada ballaaran oo siiyay dowladda Mareykanka ugana mahad celisay taliyaha xoogga Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage wasiirka gaashaandhigga iyo madax sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa joogtay garoonka magaalada Muqdisho oo lagu kala wareegayo hubkaas casriga oo Mareykanku soo waariday dhanka Muqdisho Washington ayaa wada in ay soo jiidato Muqdisho si ay ballaaran u maal gashato Mareykanka shirkadiisa waaweyn ayaa la sheegay inay kula jiraan heshiisyo waaweyn oo dhanka sahminta shidaalka iyo baarista iyadoo qadaraasyadaas haday Soomaaliya shidaalka ugu badnaayna la sheegay inuu Mareykanku halabsan doono dowladda ayaa ku guuleysatay inay ka buriso degmooyinka ugu badnaay iyadoo codsi u ballaaran u dirtay midowga Afrika iyo internationalka ka codsatay inay taageerada la sii kordhiyo ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto ururka Al-Shabaab si ay guul la taaba kara uga gaarto dagaalka ay ku jirto dowladda ayaa dadku ku ammaaneen in ay wax ka qabatay kana hadii doorashadii Xasan Sheekh kadibna ay dagaal buuxda la gashay ururkaas balse shacbiga ayaa hadda magaalada Muqdisho ay ka soo wajahayaan nabadgelyo iyo amni darro aad u weyn madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqeen inuu wax ka qabto ammaanka faraha ka sii baxaya caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho dowladda ayaa howlgallada ka dhanka ah gobolada fogfog ka dhanka ururka Al-Shabaab ayaa ka wada magaalada Muqdisho weeraro iyo gaadmo iyo madax jabis aad u daran dowladda Soomaaliya sultaankeeda ayaa gabi ahaanba fashilmay inay wax ka qabtaan kana hortagaan kooxahaas qowleysatada daawadayaashana qiimaha badan warka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa amaana Allah daawadayaal